iyadoo uu ku sii fidayo caabuqa coronavirus dunida. Gudaha dalkani Kenya ayaa laga xaqiijiyay ilaa iyo 7 kiis waxaa laga cabsi qabaa faafitaanka coronavirus. Dowladda ismaamulka Mandera ayaa dhaqan gelisay tallaabooyin looga hortagayo caabuqa coronavirus. Magaalada Mandera oo xuduud la wadaagto dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa ka socdo dhaqdhaqaaqyo looga hortagayo caabuqa koronaha. Dowladda ismaamulka Mandera ayaa shaqaalaysiisay xubno u tababaran baaritaanada iyo ka hortagidda caabuqani, kuwaasi oo la dhigay xadadka Soomaaliya iyo Itoobiya, waxayna baaritaan ku sameynayaan dadka soo galaya gudaha magaalada. dowladda county dadaal badan bay sameynaysaa arrinta ka fusayso, inkastoo dadaaladaas aan rabno dowladda dhexe oo arrimahan ku shuqul leh qaasatan inay imaadaan oo county-yaasha dhan ay si fiican baaritaan ku sameeyaan, in county-yaasha diyaar garoobka county-yaasha ay 100% juusta ay tahay oo aan marka ayada aan dhihi karno waddanko idil diyaar baa loo yahay inta bilaantinka uu taxadar uu samayn karo awood Ilaahay ka soke in dadaalka inuu meel gaaro insha Allah la sameeyo. Sidoo kale waxaa Mandera laga joojiyay isticmaalka jaadka iyo ka ganacsiga. Si la mid ah waxaa la joojiyay goobaha waxbarashada dhammaantood. mar dhow baan ogeysiis soo bixinay iyo amar buuxdo oo lagu istaajiyay isticmaaliska iyo qaadka laga bixisharay iyo hatta arinta baabuurta qaadka soo qaado dhan inaan xaaranteeno muddo gaaban inta dhibkan uu socdo anoo ku ugu dan leh hadda county-ga Meru waa laga soo sheegay dad COVID-19 qabo anagana ka horaan tallaabo qaadka bilawnay sidaad u ogtihiin dadka qaadka soo guro iyo kuwa qaadka ku shuqul leh waa dad iska qaad cuno iska yara qaad la sarqaansan uma maleynayaan in taxadarka loo baahan yahay moogta ay sameeyaan badbaadka ummadan awgeed waxaan dhahnay inta dhibkan uu socdo programka qaadka iyo bicshiradiisii iyo cunitaankiisii wax walba inaan ka xaaranteeno marka insha Allah. Barasabka ayaa ugu dambeyn ugu baaqay bulshada Mandera inay taxadar dheeraad ah muujiyaan, wuxuuna intaasi ku daray in ay ku dadaalaan nadaafadda. weynaha laga soo cabaaday hadii shicibkaanada reer Mandera ay dhahaan dhib jiraba maahan waxan waa been waxba kama jiraan aan taasna ay keento taxadar dari waa arrin aad u xun. waxaan rabnaa shicibka inaan ku dhiirigelino dhibkan COVID-19 ama coronavirus waa dhib rasmi oo jiro adduunkana dhib weyn u geystay sidaad ogtihiin boqolaal ay ku baaba'ayaan waddanka Italy intaasoo kun oo qofna ay ku baaba'een ilaa haddana maalin walba boqolaal ay ku baaba'ayaan waddanka Italy hadda ugu dambeystii waddanka Iran waa waddanka China-na wixii ka soo gaaray ogtihiin Kenya-na waa lagu sheegay Ethiopia waa lagu sheegay Soomaaliya waa lagu sheegay arrinta ayaa loo qaadanin arrin cayaar ah dadkana yay iska baafinin way iska duduubin arrimo oo cayaar inay ka dhigaan oo leeyihiin annaga hergebley baan iska nahay waxyaabo noocan marka waxaan rabnaa taxadar weyn in la sameeyo. Abdixakiim Derow Maxamed, warbaahinta Daawa.